dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan xerooyinkan qaxootiga ee Dadaab gaar ahaan xerada Dhagaxley oo ka kaashanaya culimada diinka iyo waliba ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxay ka bilaabeen gudaha xerada qaxootiga ee Dhagaxley dhaqaale ay u ururinayaan dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku dhaqan gudaha dalka Soomaaliya kulan arintan ay uga hadlayeen ee ku qabteen gudaha xerooyinka qaxootiga ee Dadaab gaar ahaan xerada Dhagaxley ayaa waxa halkaasi ka hadlay qaar kamid ah dhalinyarada iyo waliba bulshadii kale ka soo qayb gashay waxaana hadaladoodii kamid ahaa أو تفضل شو رأيك على كلام وصية مسلم كأو تفضل شو أيها الجماهير إلى قرآن يقول الله تنالوا البر إلى إحسان ولا جار بيسان حتى تنفقوا إلى هذا فقيسان مما تحبون ونجعشين وحنا يضلنا وأقل وحفظنا إلى هي واحدة سكوسي واحدة سكرنا برضو حنا إن نرجو من الجلاب ولا أنا dhibaataysan ee Soomaaliya ku dhibaataysan inuu ayadan Ilaahay dhibku ka bixiyo anaga waxaan ku tari karnaa ku tarno si ay uga qayb qaataan ama ay dhawada ugu maqlaan wixii maanta meeshan ka jiro marka labaadna waxaan u mahadcelinayaa dhalinyartii arintan soo abaabushay oo maaragtay Khaliif oo agteeda fadhiyo uu kamid yahay iyo maxay ahayd dhalinyarta kale oo shaqeynaysa aad iyo aad baa u mahadsantiin aad iyo aad baan ku mahadcelinaynaa marka kale marka arintan oo gudagalo arintan waa arin aad iyo aad muhiim u ah hadal wixii laga dhihi lahayna Sheekh Idris iyo maxay ahayd gudoomiyaha xerada soo dhameeyay hadiiba aan ku wax qaadanaynaa magacayga waa Fardowso Maxamed Cali oo ah youth leader Dhagaxley ama ururka dhalinyarada ee gabdhaha ee gudiga ee Dhagaxley والله runtii muddo ay noo qaadatay bil gudaheed aan qaban qaabinay in aan caawino ama aan gurmad sameeyno anaga oo dhalinyarta ee media ay meel walba kala hadalnay Facebook dhax dhignay page-ka dhalinyarada dhax dhignay oo ku gugaabinay dhalinyarta in ay gurmano oo aan u gurmano dadkeena Soomaaliyeed ee abaaraha ku habsadeen sidii loo caawin lahaa iyo sidii wax loogu tari lahaa laga dhaadhacsiyo waxa uu bixinayo inuu dar Ilaahay u bixiyo si dadkiisa Ilaahay ugu maxallihi loogu gargaaro marka dadkana waxaan ka dhaadhacsiinaan u sheegnay wax walba oo heli karaan ha ahaato calal maro ha ahaato raashin ha ahaado lacag nin walba waxa la wixii ku tari karo ama heli karo inuu isku keeno aan dhigno iskuulada noo dhow si loo aruuriyo loo gaarsiiyo dadka qaxootiga Soomaaliyeed ee ku dhaqan xerooyinkan qaxootiga ee Dadaab ayaa waxay door bideen iyagu xaaladooda nolosha ay ahayd mid aad u liidata inay u gargaaraan walaalahooda ku dhaqan gudaha dalka Soomaaliya isla markaana saameynta adag ee ku yeelatay abaaraha Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi iyo raadigaha TV-ga qaranka Soomaaliya xeryaha qaxootiga ee Dadaab